الله u naxariistay waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Karan Mowlaca weyn ee Sheekh Cabdullaahi Mataani lagu siyaartay looguna banaanbaxay sakhigii weynaa ee Xaaji Cali Eelay iyo xaaskiisa Xaaji Faadumo Said Cusmaan. Xaaji Cali Eelay wuxuu ku tilmaamnaa inuu aad u sadaqa badnaa isla markaana uu garab u ahaa culumaa diinkii wanaagsanaa ee diinta faafinayay sidoo kalena wuxuu aad u jeclaa xuska Alle iyo xuska xabiibkeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Xaaji Cali Eelay ayaa ka mid ahaa khulafadii ka soo baxday jameecada faca weyn ee Sheekh Axmed Mataana. Ziyaaradan ayaana waxa ay noqonaysaa tii 26aad ee xaajiga loo dhigo. Barnaamijka ziyaarada oo ahaa mid aad u ballaaran ayaana waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah dariiqada Axmediyada gaar ahaan qaybta Raxmaaniyada iyagoona halkaasi ku oogay xilqo digri ah una duceeyay in uu Alle naxariistiisa ka waraabiyo Xaaji Cali Eelay. وبات ذا ورق في حب مولاه ونهى يوما غلا تفريده وبكى خوفا لما قد جناه من خطايا وقام يرقى نجوم الليل منفردا خوف الوعي هيا هو يا إلا هو هو ليس إلهنا الله الله وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الله إله ugu dambeyntii waxaana markaasi la hadalnay mashaayikhdii ka soo qayb gashay barnaamijka iyagoona ka sheekeeyay wanaagii iyo karaamaadkii uu lahaa Xaaji Cali Eelay Allah u naxariistay. Xaajiga ayaa ahaa mid aad u sadaqa badan isla markaana jecel ahlu beydka nabigeena Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sidoo kalena garab u ahaa fidinta diinta Islaamka. waxaan joognaa maanta ziyaaradii Xaaji Cali Xasan iyo Xaaji Faadumo Said Cusmaan. ilaahay ziyaartooda maqbuul Allah ka dhigo intii ka soo qayb gashay dambigooda la dhaafo waalidka la ziyaarto la xasuusto waxay ka mid tahay waxyaalaha loogu baari noqdo ay ka mid tahay waalidka waxa uu jeclaay iyo dadka uu jeclaay ehelkii asdiqadiisii in la xiriiriyo la soo xasuusto dadkii oo
khayrka uu jeclaa iyo wuxuu jeclaa lagu xuso waxay ka mid tahay baarnimada ka mid tahay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay awlaadda xaaji cali allah barakeeyo meel kastay joogaan khaasatan sheekh cabdirasaaq oo isku xirkan sabab u ah khayr allah u jaaziyo ziyaaradu awliyada iyo dadka saalixiinta u jecel yahay waa ahlu khayr khayrka jecel waaye marka insha allah allah barakeeyo leenahay sheekh cabdirasaaq adina ku salaamaynaa insha allah أهلك ودنا وسلامة إن شاء الله ملك السجوان دلي دبد أنت نقد دعوة إن شاء الله وسلامة خير الله جازيو مرك إن شاء الله والدك لو دعيو هاي كمتها هاي وحيالها أجر كود أن والدك جوئين ولدك صالحة يدعو له ودعيها هاي وكمدها يعني أعماش والدك عيال وقرأ waxaan go'aynin oo nabigu uu yiri salawaatu illaahi wasalaamu calayhi idaa maata ibnu aadam inqada camaluhu qofka ibnu aadamka haddii uu dhinto camalkiisa waa go'a ilaa min alaain saddex walxaad maahina saddexaas walxaad oo nabiga uu sheegay salawaatu illaahi wasalaamu calayhi ee camalkiisa aanan go'aynin ibnu aadamka aysan ka go'aynin waxaa ka mid a ولد صالح يدعو له ولد صالح أي أسود دعيها والدك أيها كمذا مركا تدك ما ركت محوها هاي ولدك صالح مولاد الصالحين كا والدك دعيها سدان وكلا وزيارها هاي تدك خيارتها محوها هاي الرحمانية ده أهل كيسي تدك سوير هاي ما ركت محوها ذكر إلهي qur'aankii akhriskiisii lagu ziyaarahayo sadaqada loo bixihayo waxaasoo dhan waa waxyaalaha oo ilaahay ka ajirsihayo oo waladka saalixa camalkiisa uu sameehayo waalidkiisa u niyeysahayo waa ajarkaanan go'aynin beriga waxaa joognaa ziyaarada adeer xaaji cali eelaay xaaji cali xasan maxamed abuudacamkayna iyo eedadayna eedda faadumo ismaan sheekh axmedtaan marka waxaan leenahay inta qira bixisay iyo inta qurbaan bixisay iyo inta adkaartaan akhrisay iyo inta ka soo qayb gashay iyo inta khidmaysay muraadkooda Allah ku gaarsiiyo siyaaradana siyaara dhaxad Allah ka dhigo way culusna waxaan leenahay Allah fududeeyo dad badana muraadale muraadkooda Allah gaarsiiyo qof wixii ka culus Allah u fududeeyo waxa Ilaahay ka rajeeyaa aku sheegay alxamdulillah wixii cuslaayo dhan amba diinka xaqiisa ahaadaano amba deeqa xaqiisa ahaadaano amba dadka xaqiisa ahaadaano amba sharciga xaqiisa ahaadaano amba caafimaadka xaqiisa ahaadaan kulli Ilaahay inuu fududeeyo Ilaahay ka rajeeyaa kulli Allah wada fududeeyo qorna Allah idin dhigo wixii ay jeclaa jireen waalidkaas maxaa jira aad samayseen anaga waxa soo gaarnay sheekheena adeer Sheekh Muqtaar Siid Axmed Sheekh Axmedtaan waxay u ahaayeen gacanay u ahaayeen fadhiyay u ahaayeen wixii ayaga sameeyaan gurigaas saldhiga sheekha meeshaas uu ka soo faayay marka muraadkiina Allah saalis wixii ay jeclaayeen iyo saadaadka siyaaradooda iyo أخيارتي إيج علاين ولا سكاني أجري حسنات الله ديك سيو وحيل دير من الشيخين أو الشيخ أحمد يجري مركوا مع سنتين بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء